isu sheegtiyo isqoraansi baa yimi qaradaha adduunyada la isu qoonsay nabadi quwad la isu sheegtiyo isqoraansi baa yimi onkaan israacine qarannimo waxay tahay onkaan israacine qarannimo waxay tahay qiimaheeda lumiya cadowga qabsada oo qabow kuma nastaan onkaan israacine qarannimo waxay tahay onkaan israacine qarannimo waxay tahay qiimaheeda lumiya cadowga qabsada oo qabow kuma nastaan siyaasado qarsoon iyo qosolaan qalbiga jirin been baa lagu khaldaa si loo qaybiye soomaaliyey mid qura noqo siyaasado qarsoon iyo qosolaan qalbiga jirin been baa lagu khaldaa si loo qaybiye soomaaliyey mid qura noqo isu sheegtiyo isqoraansi baa yimi bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum dhegeystayaal halkan waa raadiyaha star ku soo dhowaada barnaamijka xogmaal وهبين أربعة ثلاثة أي سي بحيثو تاريخ دا يتلمامي سو كو إيطبان كفبرايو سنة لباتن قد بدا عاوة برامجكات كل جيسان دونتان وحاكم دا تاليسكا عيدما دا بوليسكا صوماليات أو شاقي إن لغو سو دولي أمنيكا قوداهان دالكا إسلاماركانا حلقان وملحون مريو برامجكا أيادكو مغلي دونتان تالي حجار أو عرمها أمنيكا دالكا سي أدق وغاها الليمانتا وحاسيدو كلا عاوة برامجكاتكو مغلي دونتان magaalada Boosaaso ee gobolka Bari waxa maanta lagu toogtay laba kamid ah ragii kufsiga iyo dilka isugu daray Allah u naxariistay marxuumad Aisha Ilyas Adam waa sidee dareenka aabba Ilyas Adam muxuu ka yiri sida loo qisaasay ragii dilay Allah u naxariistay Aisha Ilyas Adam warbixin ayaanu idinkaga helnaa barnaamijka ayaadna ku maqli doontaan waxaad sidoo kale barnaamijkaad ku dhageysan doontaan safiirka dawladda Soomaaliya oo fadhiya dalka Shiinaha oo maanta shir jiraa'id ku qabtay Muqdisho ayaa mar kale ka hadlay xaaladda ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata gudaha dalkaasi Shiinaha halkaas uu ka dilaacay caabuqa cudurka coronavirus boqolaal u dhashay dalkaasi Shiinahana ay u godgaleen kuwa kalena wili la dhul dhacsan barnaamijka ayaad ku maqli doontaan qayb waxa ka qodobada kale caawa aad barnaamijka ku maqli doontaan jiri jiray magacaawi odayaalkana kulay markii dib xulista oo ay galahaayeen
xildhibaane baydaw jinaaya lanay eedan faylata xaaladii walmuqallaasu maasha allah waa xildhibaan cibaade xirsi oo ka mid ah golaha wakiilada koonfur galbeed ee soomaaliya uu soo dhoweysay magacaabista guddigii shalay lagu dhawaaqay ee doorashada baarlamanka labaad ee koonfur galbeed ee soomaaliya waxaad sidoo kale caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan taliyaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha soomaaliya oo sheegay in hay-addu ay ka hortagtay dembiyo badan oo la xidhiidha dhanka socdaalka xilli maanta muqdisho uu ka furmay shirka 3 bilaha ah ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha soomaaliya barnaamijka ayaanu idinkugu soo gudbin doonaa gudoomiyaha gobolka Gado Cusmaan Nuur Xaaji oo waraysi dhinacyo badan taabanaya siiyay Star FM Muqdisho ayaa soo dhaweeyay hadalkii dhawaan ka soo yeeray xildhibaanada baarlamaanka ismaamulka Mandheera ee ku aadanaa in dowladda Kenya ay gacanta ku dhigto wasiirkii amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan iyadoo dhinaca kalena dowladda Soomaaliya wili baadigoob ay ugu jirto wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan barnaamijka ayaanu idinkugu soo gudbin doonaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markiisii ugu horeysay tan iyo markii loo doortay xilka dalka la kulmay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi maxay ka wada hadleen labada mas'uul yaa ku sugnaa goobta uu kulanka ka dhacay yaase soo abaabulay in ay wada kulmaan Farmaajo iyo sidoo kale Muuse Biixi barnaamijka ayaanu idinkugu soo gudbin doonaa qeybaha dambe ee barnaamijkana sidoo kale waxaad ku dhageysan doontaan aragtida qaar ka mid ah dhageystayaasha Star FM ka aragti dhiibtay su'aal aan ku daabacnay qaybta WhatsApp-ka ee barnaamijka kuna aadaneed arrimaha kubsiga iyo sidoo kale xukunkii maanta lagu fuliyay laba ka mid ah raggii dilay allaha u naxariistay Aisha Ilyas qaar ka mid ah dhageystayaasha Star FM oo ka aragti dhiibtay ayaanu barnaamijka idinkugu soo baahin doonaa qodobadaasi wixii soo kordha ayaad maqli doontaan haddii rabbi raali ka noqdo barnaamijka waxaa soo saaray halkan idinkala socodsiinaya Cabdiqaadir Sheekh Maxamed Qoslaaye Maxamed Abuukar Cabdi Xasan ayaa farsamada ku jira gabagabadana waxaad dhegeysan doontaan hagaag dhegeystayaal heestaas gabagabada barnaamijka ayaad maqli doontaan waa mar kale iyo barnaamijka xogmaal waa tahay dhegeystayaal mar kale habeen wanaagsan isu soo noqod wanaagsan goordhow waxaan gudagali doonaa baahinta qodobadii hordhaca barnaamijka aad ku dhegeysateen balse intaa waxaa ka horeeya dhegeysiga wararka ugu waaweyn gudaha dalka iyo dibadda waxaa soo ururiyay soona jeedinaya Maxamed Abuukar oo farsamada ku jira Maxamed maasanid Cabdiqaadir ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa saacadii la soo dhaafay waxa ay howlgallo ay ka sameeyeen deegaanka Sinka Dheer ee duleedka magaalada Muqdisho ciidamada ayaa howlgalka intii uu socday waxa ay ku fashiliyeen miinooyin lagu aasay wadada dhinaceeda kuwaas oo ay ciidamada ay sheegeen in la doonayay in lagu dhibaateeyo shacabka isticmaala wadada Sinka Dheer taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya Jenaraal Odwaa Yuusuf Raage oo la hadlay warbaahinta dawladda ayaa ku nuxnuxsaday howlgalkaasi ay maanta ciidamada xoogga ay ka sameeyeen deegaanka Sinka Dheer ee duleedka magaalada Muqdisho isagoona tilmaamay in miinooyinkaasi ay wadada ku haseen xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab isla markaana ay ciidamada xoogga ay soo saareen waa sida uu hadalku u dhigay
ee howlgalkaasi miinooyinka lagu soo saaray ayaa ku soo aadaya iyadoo shalay ciidamo ka tirsan dowladda qarax xoogan lagula egtay deegaankaasi ay maanta ay howlgalka ka sameeyeen ee siinka dheer waxaana ciidamada qaraxaasi ka soo gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac faahfaahinno ayaa ka soo baxaya ciidamo ka wada tirsan booliiska gobolka galmudug oo duhurnimadii maanta israsaaseen ay ku dhex martay deegaanka lagu magacaabo bandarkhaali oo ka tirsan gobolkaasi israsaaseentaasi dhex martay ciidamada ka wada tirsan booliiska galmudug ayaa waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac gudoomiyaha gobolka mudug cabdiraxmaan isxaal oo ku sugan deegaanka bandarkhaali ee maanta israsaaseyntu ka dhacday ayaa waxa uu sheegay in hal ruux oo shacab ah uu ku dhintay goobta halka dhaawaca uu soo gaaray askari ka tirsan ciidamada booliiska sidoo kale gudoomiye cabdiraxmaan ayaa waxa uu tilmaamay in xal laga gaaray khilaafkaasi sababay gacanka hadalka oo soo kala dhex galay ciidamada booliiska islamarkaana xaalka deegaanka ay tahay iminka mid degan mas-uuliyiinta iminka talada haya ee waddanka suudaan ayaa oggolaaday in madaxweynihii hore ee waddankaasi suudaan cumar albashiir loo gacangeliyo maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada dagaalka ee i c c go'aankan ayaa yimid kadib markii magaalada caasimadda ah ee ku kulmeen dowladda suudaan iyo mucaaradka gobolkaasi daafuur albashiir ayaa wajahaya eedeymo la xidhiira musuq maasuq iyo dembiye dagaal kuwaas oo dhacay markii uu socday dagaalkii gobolka daafuur ee sanadkii 2003 cumar albashiir ayaa xilka laga tuuray bishii abriil ee sanadkii la soo dhaafay waxa uuna xilka madaxtinimada kula wareegay inqilaab militari sanadkii 1989 tirada dadka u dhintay cudurka coronavirus ee dalka shiinaha ayaa dhaaftay 1,000 qof waxaana sare u sii kordhay walaaca laga qabo heerka uu leegyahay dhaawaca uu gaarsiiyey dhaqaalaha dalkaasi shiinaha shirkadaha dalkaasi shiinaha qaarkood ayaa weli shaqada ku soo laaban kadib markii fasax dheer ay siiyeen shaqaalahooda dabaaldegii sanadka cusub kadib halka kuwa kalena ay dowladda weydiisteen balaayiin dollar oo deen ah shirkadaha qaarkood ayaa sidoo kale shaqada ka celiyey dad badan inkastoo oo ay jirto in madaxweynaha dalkaasi shiinaha xiin jinping uu shacabka u ballan qaaday in aysan jiri doonin shaqo ciirin badan ugu dambeyntii ugu yaraan 6 ruux ayaa ku dhimatay kadib markii weerar ismiidaamin ah lagu qaaday subaxnimadii maanta xero militari oo ku taala caasimadda kaabul afhayeenka wasaaradda amniga ee dalkaasi afghanistan master nasraati raxiimi ayaa xaqiijiyey in 2 qof oo rayid ah iyo 4 askari oo militari ah ay ku dhinteen ismiidaaminta ayaa dhanka kale waxaa ku dhintay 12 qof oo badankoodu ah dad rayid ah sida uu tilmaamay afhayeenka qaraxa kadib ayaa waxaa goobta laga maqlay israsaaseen xoogan oo dhex martay ciidamada amniga iyo nin hubeysan oo la aaminsan yahay inuu ka dambeeyey weerarka caasimadda kaabul ayaa bilihii la soo dhaafay waxa ay ka nabdooneed qaraxyada ay ka geystaan maleeshiyaadka taalibaan waana intaa dhegaystayaal dhacdooyinka caalamka aan dib idinku celiyo cabdiqaadir quslaaye iyo qeybaha kale ee ku jira barnaamijka xogmaal aad buu u mahadsan yahay waryaheena maxamed abuukar cabdi xasan oo soo koobayey wararka gudaha iyo dibadda kuwoodii ugu waaweynaa markaan si toosa ayaan u gudugalaynaa barnaamijka sida hordhacaba aad ku maqlayseen dhegaystay taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed waxa uu sheegay in lagu soo duulay amniga guud ahaan dalka islamarkaana xilligan uu meeshii ugu xumeed uu marayo amniga dalka taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed sareeye gaas cabdi xasan maxamed xijaar ayaa maanta si adag uga hadlay xaaladda amni ee dalka taliyaha ayaa carabka ku dhuftay in la qarxiyey kaamirooyinka lagu xiray jidadka muhiimka ah ee lagala socon lahaa dhaqdhaqaaqa sidoo kalena la beegsanayo injineerada dhisaya jidadka isku xira magaalooyinka muqdisho iyo afgooye sidoo kale taliyaha booliska ayaa intaas ku daray khudbadan oo dhinacyo badan taabanaysay in amniga dalka lagu soo duulay islamarkaana laga soo galo xuduudaha iyo hawada sida uu hadalka u dhigay waa kan khudbadii uu ka jeediyey shirka 3 bilaha ah ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha ciidanka booliiska wuxuu wada shaqayn ka dhaxaysa hay-adda socdaalka meel walba oo ay joogaan hoggaanka socdaalku waa joogaan muxuu ahaa ciidanka booliiskana waa joogaan maxaa yeelay iyagaa xoog u ah oo indha u ah muxuu ahaa weligoodna waa wada shaqayn jireen saasay wada shaqayn jireen hadday gobol tahay hadday xuduudta tahay hadday aeroboortka tahay wada shaqayn fiican baa ka jirta awalna waa ka jiri jirtado waana noo qorshaysnayd waa naga go-an tahay inaanu wixii shuruucda hoggaanka socdaalka uu leeyahay
shuruucaha aanu aada u fulino inay ka mid tahay maxaa yeele waxay ka mid yihiin kuwa ugu muhiimsan bay ka mid yihiin dalkeenna amnigiisi waxaad u malaysaa in lagu soo duulay ama xuduudda ha laga soo galo ama dawlada ha lagu yimaadee dalkeenna amnigiisa waa lagu soo duulay amnigiisa dalkeennu meel xun buu marayaa inaanu marka labada hay-adood wada shaqeeyaan muhim waayo waxaa la diidan yahay oo hadda la diidan yahay dadka amnigiisa in la ilaaliyo muxuu ahaa kaamirooyinkii lagu xiray waddooyinka in la qarxiyaa la gaaro dalka hore markiisaa la diidan yahay waddaa la dhisayaa oo hadda waddooyinkaan dhisanayna injineeradaanu keenay baa la qarxinayaa waxna loo dhigayaa iyagina la dilayaa waxaa la diidan yahay ummadda tan soomaaliyeed inay xasisho oo amni ku noolaataa la diidan yahay oo lugaheeda ku istaagto marka amniga waxaa naga saaran xil weyn baa naga saaran hay-adda socdaalka dalka dadka soo gelaya inay kontaroosho boliiskuna amniga gudaha iyo iyagu gacan siinayo ay wada shaqeeyaan aada iyo aad bay muhiim tahay dalka kan annaga iska leh amnigiisana annakuna saaran yahay aada baan ugu faraxsanahay qorshaha hoggaanka hay-adda socdaalku ay dejinaysay jinsiyaduhu ay dejinaysaan 7 bilooda soo socda boliiska naftiisa qorshe noocaas oo kale ah ayaanu aanu leenahay waxaa hadda ku socda boliiska reformkaasoo macnihiisu yahay in qaabka shaqada loo qabto in wax laga bedelo cidda qabanaysa in wax laga bedelo iyo sida loo maamulaya hantida guud ee boliisku leeyahay hadday gaadiid tahay hadday lacag tahay hadday beero tahay wax allaale wixii hanti ah oo boliisku leeyahayna isagana waxaa ku socda reformkaasoo la rabo in uu noqdo sida qorshaha dawladdu dejisay mid cad oo bayaana oo waadixa oo la taaban karo waxaanu gaarnay hadda qorsheynay hoggaamada taliyuhu iska magacaabi jiray aad buu u mahadsan yahay waryaheena maxamed abuukar cabdi xasan oo soo koobayay wararka waxaa naga saaran xil weyn baa naga saaran hay-adda socdaalka dalka dadka soo gelaya inay kontaroosho boliiskuna amniga gudaha iyo iyagu gacan siinayo ay wada shaqeeyaan aada iyo aad bay muhiim tahay dalka kan annaga iska leh amnigiisana annakuna saaran yahay aada baan ugu faraxsanahay qorshaha hoggaanka hay-adda socdaalku ay dejinaysay jinsiyaduhu ay dejinaysaan 7 bilooda soo socda boliiska naftiisa qorshe noocaas oo kale ah ayaanu aanu leenahay waxaa hadda ku socda boliiska reformkaasoo macnihiisu yahay in qaabka shaqada loo qabto in wax laga bedelo cidda qabanaysa in wax laga bedelo iyo sida loo maamulaya hantida guud ee boliisku leeyahay hadday gaadiid tahay hadday lacag tahay hadday beero tahay wax allaale wixii hanti ah oo boliisku leeyahayna isagana waxaa ku socda reformkaasoo la rabo in uu noqdo sida qorshaha dawladdu dejisay mid cad oo bayaana oo waadixa oo la taaban karo waxaanu gaarnay hadda qorsheynay
hogaamada taliyuhu iska magacaabi jiray hogaan hebel taliyaa loo magacaabay imtixaanaa loo gelaya annaga imtixaanaan dejinay nin allaale ninkii doono boliiso wax isku ogow imtixaankaad gelaysaa imtixaankaas ninkii gala oo weliba annaka aanaan qaadane hay-ado badan ay qaadayaan ilaa 5 hay-adood oo kale ayaa imtixaanka dejinaya oo qaadaya annagu magacyadaanu geynaynaa waxay ka mid tahay reformka si qofka meesha loo dhiibaya uu yahay qof ka bixi kara xagga ammaanada iyo xagga aqoonta labadaba reformkay ka mid tahay marka waxaa loo sameynayaa ama qorshaha hadda idinkaad taliyaha hogaanka hay-adda muxuu ahaa socdaalka iyo jinsiyaduhu diyaarinaya qorshaha u diyaarinayo waa qorshe xisaabtan waay qorshe dadaan qorshe lahayn oo iska socda waktigeedii waa la dhaafay hadda waxaa leenu joognaa wakti la xisaabtamo wakti hanti ahaan shaqo ahaan reformka waxaa ka mid ah annaka saldhig walba qofka ku qoran waktiguu yimi iyo waktiguu ka baxay in loo shaqeeyo dowladda booliisku ka shaqeeyo waktiyadii loogu talagalay intii loogu talagalay inuu shaqeeyo oo la ogaado nin walba meeshii uu joogay waktigii loogu talagalay inuu shaqeeyo reformkaas waa reform dhib badan wax kasta oo aada isbedel ku samaysana waxaad kala kulmaysaa dhibaato muxuu ahaa dad bay danihiisa ka hor imaanaysaa dadkaasaa qaylinaya dadkaasaa muxuu ahaa waxay barteen oo weligood wadeen bay rabaan inay weli kusii socdaan marka waxaa la rabaa mas-uuliyiintu adkaysi inay ulahaadaan waxaa ka imaanaya reactionkaas oo aan rabin horumarkaa in la gaaro aan rabin waddo in la sameeyo aan rabin in la toosiyo maamulka iyo maareynta shaqada dadka horsoonaya in mas-uuliyiintu u adkaysato isagana reformkaasaanu wadnay waxaan rabaa inaan muxuu ahaa aan idinka magacaad celiyo sidii naloo ku soo dhaweeyey saaka halka agaasimaha guud hay-adda jinsadaha iyo socdaalka waanu saaxiib nahay wada shaqeyno muddo badanna aan shaqeynaynay waxaana rabaa inaan ku dhawaaqo in shirka maanta uu idiin furan yahay dhinaca kalena taliyaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha ee dowladda soomaaliya ayaa isna dhankii khudbad uu kaga hadlayo waxyaabihii u qabsoomay hay-adda isagoo khudbadiisa ku lifaaqay in hay-adda ay gacanta ku dhigtay dhowr kiis oo la xiriira dembiyo dhanka socdaalka islamarkaana ay hay-addu ku guulaysatay gacan ku dhigista raggaasi dembiyada ku kacaya oo la xiriira dhanka amniga waa kan taliya koofi oo isna arrimahan ka hadlay waxaan kaloo oon rabnaa inay si gaara inaan u tilmaamo in wada shaqaynta hay-adaha kale ee dowladda heerka maanta ay taagan tahay inay aada iyo aada uga sarreyso heerarkii hore oo marba marka dambeysa ay sii hagaagayso wada shaqaynta hay-aduhu sida booliiska maxkamadaha dowladaha hoose iyo sidoo kaleeto wasaaradaha waxaan si gaara uga mahad celinaynaa wada shaqaynta booliisku ay nagala shaqeeyaan arrimaha la xiriira ka hortagga dembiyada socdaalka iyo sidoo kaleeto baarista dembiyada la xiriira adeega baasboorka ama socdaalka intaba sidaad la socotaan hay-addu waxay xafiisyo iyo adeegyo ka bixisaa xafiisyo ku leedahay oo adeegyo ka bixisaa inta badan gobollada dalka waa shaqo aada u ballaaran run ahaantii oo u baahan in waqti badanna la geliyo qorshe badan iyo maxaa la yidhaahdaa hawl badanna halka ay ku jirto waxaa sidoo kaleeto oo si gaara jeclaan inaan u xusno in caqabadaha dalku ama hay-adaha dowladdu ay waajahaan in hay-addu meel waliba oo ay ka shaqayso ay ka jiraan oo ay hadday tahay dhinaca amniga iyo hadday tahay dhinaca miisaaniyadda iyo hadday tahay dadka wacyigooda oo aan maaragtay aada u baraarugsanayn iyo sidoo kaleeto xuduudaha aada u dheer haddana wada shaqaynta dalalka dariska ah oo sidii la rabay heerkii la raba aan gaarsiisnayn waa caqabado guud oo hay-adaha qaar ay nala qabaan si gaarana waxay u taabanaysaa shaqada hay-adda
saddexdii bilood oo lasoo dhaafay dalka waxaa soo galay tiro ka badan tirooyinkii hore usoo geli jiray oo dad ah. waxaa ka baxay in ka badan intii hore usoo geli jirtay. kolley waxaa lagu soo gudbin doonaa qoraal. waxaa laga hortegay dembiyo aada u badan oo dhinaca socdaalka ah iyo dhinaca la xiriira adeega baasaboorka oo dhammaantood hay-adaha baarista iyo maxkamadaha loo gudbiyey. waxay hay-addu qabatay tababaro muddadii 3 bilood ee lasoo dhaafay aada u badnaa run ahaantii, oo aan uga mahad celinayno waaxda shaqada iyo shaqaalaha oo iyagu aada uga soo shaqeeya tababarada. waxaa iyadana sidoo kaleeto hawsheedu socotaa dhismihii xarunta dhexe ee hay-adda oo iyaduna aan rajeynayno sanadka dhammaadkiisa in ay hay-addu yeelato xaruntii ugu weyneed oo ay ku yeelan doonto magaalada muqdisho, dhismihii ugu weynaa. waxaa kaleeto oo hadda socota aan rabnaa inaan la wadaagno gobolka iyo dhammaan hay-adaha dowladda in xarun cusub lagu soo kordhiyey oo baasboorka laga bixiyo magaalada muqdisho. oon rajeynayno usbuuca soo socda inay shaqo bilowdo haddii aan la yidhaahdo, taas oon culayska uga yaraynayno xarunta hadda laga bixiyo oo aada maaragtay dadku ugu badan yihiin ama dalabku ugu badan yahay. sidoo kaleeto 3 bilood soo socota waxaa inoo qorshaysan gobollada meelaha aadka ugu badan yahay dalabka baasboorku in ayagana la ballaariyo oo loo badiyo qalabka ay ku shaqeeyaan iyo sidoo kaleeto xarumaha. waxaa qorshaysan in iyadana sidoo kaleeto aan dhammaystirno waxyaabihii ka dhimanaa dhowr meelood oo nooga dhimaneed xuduudaha dhinaca dhulka ah oo dib u howlgelinteeda aan hore ugu soo jirnay. howlo badan ayaa ku aadan 3 bilood ee nagu soo aadan haddii aan la yidhaahdo, aan rajeynayno in ay noo qabsoomaan oo ilaahay nala garab galo. inahaas ayaan rabaa inaan kusoo koobo. mar kale waa idiin mahad celinayaa. weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka xogmaal star FM muqdisho ayuu idinkaga imaanaya. markaan boosaaso, magaalada boosaaso ee gobolka bari waxaa maanta lagu toogtay 2 ka mid ah raggii kufsiga iyo dilka isugu daray allaha u naxariistay marxuumad Caaisha Ilyaas Aadam. waxaa sidoo kale arintaasi ka hadlay aabba Ilyaas Aadam, waxa uuna cabiray dareenkiisa iyo sidoo kale sida uu u arko qisaastii lagu fuliyey raggii dilay kufsigana u geystay allaha u naxariistay Caaisha Ilyaas. aabba Ilyaas waxa uu la hadlay warbaahinta islamarkaana ka hadlay habkii uu u dhacay qisaasta ku aadanayd raggii dilay gabadhiisa Caaisha Ilyaas Aadam. aabba Ilyaas ayaa soo dhaweeyey toogashada lagu fuliyey Cabdifataax Cabdiraxmaan Warsame iyo sidoo kale Cabdishakuur Maxamed Dige, isagoo sheegay in uu ku faraxsan yahay qaabka uu u dhacay. sidoo kale waxa uu sheegay in xukunka lagu fuliyey raggan uu daawo u noqon doono gabar kasta oo Soomaaliyeed, gaar ahaan in aan dumarka lagula kicin kufsi iyo dil. Febraayo 11 waxaa la qisaasay 2 nin oo dambiilayaashii ahaa oo Cabdifataax Cabdiraxmaan Warsame iyo Cabdishakuur Maxamed Dige baa la qisaasay. maanta aad iyo aad baan anagana qisaastay, waana ku faraxsanahay. ninkii saddexaad waxaa dib u dhigay 10 cishaa dib loo dhigay, waana dambiilo ahaa. codsi baa jiray xagga maaragtay dadka ah iyo annaka ah, waana la hubinayaa 10 cisho. codsiga waxaa wada dhiibay aniga iyo dad oo iyaga ka tirsan baa wada dhiibnay in la hubiyo ninkaas. waa annaga xaggayana dambiilo ahaa, 10 cishaana la baaraya. nimankii Caaisho dilay waa wada aqaanay, daris baanu ahayn, waanu wada hadalnay, xataa waa iscafinay. cafis bay iga dalbadeen iyagoo tiirka gaariga saaran gaal shiraha. aakhiro unbaa war jiraa baan ku yidhi. tiirkaana la geeyey waana la dilay labadiiba. goobjoog baan ahaa, hataa markay dhinteen dhuunta iyo gacanta waa ka taabtay. DNA-gu aabbiyo hooyaa wada dhalay, laakiin maxaa ku jira falkii gabadhaa ku dhex jira ninkaas. dhacaankiisii baa ku jira, shahwadiisii baa ku jirta, dhiiggiisii baa ku jira. hadduu la falgalay waa la heli doonaa. qisaasta annagaa fushanay. dowladdu waxay tiri fushadaa la yiri, shareecada islaam weeyaane. dareenkaygu aad iyo aad buu u fiican yahay. Soomaali weynna waa u mahadinhayaa dadkii dembigaas galay, Caaisha Ilyaas Aadan ka galay. baaris baa lagu jiraa kaas. baaristaas haddii DNA la qaado kale waa arkaynaa, haddii wada hadal u yimaadana waa arkaynaa. kiiskan waxaa laga baranayaa cashar xoog leh. gabdhaha Soomaaliyeedna waa badbaadahayaan,
uuna dhacay kiiskan waana la badbaadhayaa ummadda soomaaliyeedna waa u sheegayaa gidwood koonfur galbeed haddii aynu eegnana xildhibaan cibaado xirsi oo ka mid ah golaha wakiilada koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa soo dhoweysay magacaabista guddiga doorashada xildhibaanada labaad ee koonfur galbeed ee soomaaliya shalay ay ahayd markii madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya uu soo saaray digreeto lagu magacaabayo xubno ka shaqeynaya arrimaha doorashada baarlamanka labaad ee koonfur galbeed ee soomaaliya xildhibaan cibaado xirsi waxa ay ka mid tahay xildhibaanada baarlamanka koonfur galbeed ee soomaaliya oo muddaxileedkood ilaaday ayaa sheegtay inay aada u soo dhoweyneyso guddigaas la magacaabay islamarkaana ka shaqeyn doono arrimaha doorashada baarlamanka labaad ee koonfur galbeed ee soomaaliya marka hore xildhibaan cibaado xirsi kusoo dhowow idaacadda star f m muqdisho marka xigtana sideed u aragtaa xubnaha loo magacaabay guddiga doorashooyinka baarlamanka labaad ee koonfur galbeed ee soomaaliya bismillahi raxmaan raxiim xildhibaanadii oo hata xilshoo dhamaaday weliba hata weli xil ka haayaan jira kumad ahaan idaacaddii salaameen marka hore salaan kadib maasha allah guddiga shalee la magacaabay odayaalkana kolleyba markan kadib xulista oo way gala haayaan xildhibaane baydhawjinaaya lanay eedan faylata xaaladii walmuqalaasu maasha allah dee kolleyba rajo fayda iyona nabadgelyo fayliye iyo yaala wadanka haddana rajadan eediye 100% faylata kase waa gartay markana insha allah walba ma nooxay saabsan baydhawjinaaya lare madaxweynuhuna ku ganacsan madaxweyne oo micnaha cadaalad qabahaayo sidin soo diyeesta camal wadanka meelusanli aan lahayna halkiisana isu roogi de maasha allah waaye arrintaana dhagdhag waaye walbada noocaada gaata oo micnaha shaqaysata ee soomaaliya horumar la fadaanee sida baydhawo jirayaan waa gartay markii aad eegto tirada loo magacaabay guddiga doorashooyinka hawsha ballaaran ee u taallo markii laysla barbar dhigo dad badan ayaa gadood ka muujinaya ka xildhibaan ahaan oo waktigaagu idlaaday sideed u aragtaa maxayse kula tahay maya walma jiraan 4 sano hore yaa ahaayeen shariifka roogi dee cadaalad madii hore bilaawleeda oo haytay halna iyo halka haleen xildhibaane walba makumagun ka ganacsan 100% ka ganacsan madaxweyne roogo cadaalada maasha allah ee hadii qaabkiisa micnaa indaadayahay koonfur galbeed ganacsan hadda warmada halkaasoo mayb wala wadinki siday soo diyeesta madaxweynada hasan roogo eedan ka ganacsan 100% antana lankii alifyay ee warka nagada xildhibaanadii hore iyo xildhibaano cusub lankii ertaagis ilaahay ka daryeertay 100% ma ka ganacsan waa gartay waxaan rabaa xildhibaan inaan ku weydiiyo baarlamanka ama golaha wakiilada koonfur galbeed muddo dheer ayaad ka tirsan tahay waxaa laydinku eedeeyaa in aadan ka hadlinba amaba indhaha aad ka daboolataan arrimaha masiiriga ah ee markaasi taagan shacabka dhagahooda ka guuxaya in loo faahfaahiyo baarlamankii mas-uulka ka ah shacabkana ay ka hadlaan maxaad uga aamustaan arrimahaas ولي جرت إن آدم كورت فيري إن آدم كسيديس بماي بواها إلهي بيجي مكوالنا وجرى والبدن أو خرمرك ودنك سومالي أن أقولاين أن فضانا أو أنها دانت تيتي وليك حساب بايانا يجرت سومالي أو ميل أسب الجوغل markii la aqoonay shakhsiga saas ama la qodantid ay ka xisaabtamayo oo wadanka horumar iyo ummadda masaakiinta ah micnaha horumar la fadaan aan ha ku reebo wallahi boqolkiiba boqol koonfur galbeed eedan ka ganacsan tisadin gobol madaxweynaha hata talada haayona micnaha madaxweyne 20 jeer oo cadaalad miisan maasha allah halkan san u saatireen wadanka ku bedelay waana ku qabanayo الدول الدين بدي والحل أسمية يتعينيه كوفر قلبات معنا معمول قلة ديري ولا يرش من أن أتكلم حسن بقول كيف ولا كجنا حسن وأنا ما حلا أصلا هرمر قيلة أو معنا كحساب تمانون يا هرمر لي ونلا رحوي كذا أنا أسكدورنا حيل أنا حتى حنا جرا هايون ويبواها إنك إلهي نسيت كداري حامي هور إيه هم دك أسود دكتور xildhibaan waxaan u malaynayaa inaadan su-aasheeda fahmin waxaan ku idhi arrimaha masiiriga ah ee markaasi taagan u baahan in laga falceliyo ama baarlaman ha noqoto ama siyaasi koonfur galbeed ka tirsanba ha noqdee kama hadashaan idinka golihii baarlamanka xitaa ugama hadashaan maxaa sababay arrimahaas تيري والله حلا
تيري شعبك معناها تيري شعبك دبك شعبك مديد دبهاي يدك كدوهاي قوم شعبك بنوهاي سيدمنات ويبا جرى سياسيين أمير كتروغان حلقبسي كدكدان سيدي كوفر قدد والمقاناسون لابد سبيدي قبل اسم داسوكو ماهو كماهاي ونسبيدي أنا قبل كدانا عسمو ونيشي إبقاني مدحوينة أنا اسكدوبا بقول كيبو بغلا كدانا عسمو والبمنو حلاسون كستي واقرتي markan wayba jare anu kiisheey sidoo oo micnaa meediyaha oo tiiri walaadin meediyaha ninne way jare lan ko wadigo lan ko la dooweeti amal way jare lan ko shireedi shaqsi oo aan ka xisaabtamaan dadku wadan aan xisaabtamaan oo way jartay caadaqaate alooran in shaqaysaday hadii furaad ko furgada boqolkiiba boqol wal kana Soomaaliya eedan ka ganacsan uu in madaxweynaha isticmaalkan isku duuban wala ma noo halawsan xildhibaan waxa aad eedeynayso waa madaxweynihii hore ee koonfur galbeed ee Soomaaliya Shariif Xasan xilligaas xildhibaan ayaad ahayd hadda xildhibaan ayaa tahay ma aqbalsan tahay dhaliilaha shacabka qaar iyo siyaasiyiintaba ay idin muujinayaan ma aqbalsan tahay aniki sheegi micnaha way ka aray oo mid koonfur galbeed wadku qalaasan waa ku yaaba micnaha shakhsi أص معناها قلب والوسط أرجع قدام تكتب ملك واي إنك حساب تمان الدولك إدتك أنت والشيء والقيامة حانا المهوب بعد التاني ستواي بواها نحنا هرمرت من الديرة حانا أمل ما يقدر ينسداو القواعد كده ميديها وأمرك وهذا الآية ما يبغاش ابن مثل آية دكتور مثل آية بعد وبنت مثل آية على حاسة ونحلباني وريها ريح الكياسي هايمه xildhibaan waxaan rabaa inaan ku weydiiyo arrinta Mukhtaar Robow oo muddo sanad iyo wax ka badan xabsigu u jira dowladda Soomaaliya ma kala hadasheen madaxda dowladda maxaase kala socotaa adii arrimihiisa يعني هتوريكي بس ده مختار ما بيلب أبغاي مدحوينه كوفر بالمدرس مدحوينه معاينة كسي مختار نقصد دولة والكل هو أنا سياسة أن أوين مقالة كورو مدرس مدحوينه هتروح وين عاد مقالة هاي مدحوينه بمعاينة وين كلا جراه laakiin arrintiisa inaad ka hadashaan Soomaha maadaama xildhibaan aad tahay koonfur galbeed aad ka tirsan tahay Sooma ahayn in arrinkiisa aad meel ku ogaataan فيري لما ركز مدحوينه هاي والله كل حدا لا ولا هدي مدحوينه اللي سياسة أبصر على معنا مدحوينه صومالي هي معنا سياسة النووي أنا تاسمع قال كورو هي كان ويكين هاي ولا البونبونيا أو معنا بيدو دكتور أو معنا حتى طمعنا جراك جابر أنا كين شقة هي أصلا معارض ودن كاتك صحاي صدق كوفر بالبيت dadka la sheegay in ishantu wadada ku jiraan inuu xildhibaanahay wadada ku jiraan caada kaata banaan ibeen barbagaanti sheegaw micnaha walaaga siyaasadaas may buuxa siyaasad madaas lankan hati loogu la kaeeday kormee gudoomiyaha gobolka Gado Cusmaan Nuur Xaaji ayaa wareysi dhinacyo badan taabanaya siiyay idaacadda Star FM Muqdisho waxaana uu soo dhaweeyay hadalkii dhawaan ka soo yeeray xildhibaanada baarlamaanka ismaamulka Mandheera ee ku aadanaa in Kenya ay gacanta ku dhigto wasiirkii amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Nuur Janan oo dhawaan ka baxsaday xabsi ku yaala magaalada Muqdisho sida ay sheegeen hay-adaha amniga ee dowladda federaalka Soomaaliya isla markaana ilaa iyo iminka ay baadigoob ugu jiraan gudoomiyaha gobolka Gado Cusmaan Nuur Xaaji ayaa sheegay in ay soo dhaweynayaan tallaabada xildhibaanada ismaamulka Mandheera isla markaana ay ka wada shaqeyn doonaan sidii gacanta loogu dhigi lahaa Cabdirashiid Janan waxa uu qadka taleefanka ugu waramay wariyaheena Maxamed Cabduqaadir Zilfa waa tahay dhegeystayaal wili waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka xogmaal idaacadda Star FM Muqdisho ayaadna ka maqlaysaan markan madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa markiisii ugu horeysay tan iyo markii xilkan madaxweynaha dalka loo magacaabay la kulmay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi wararka ka imaanaya magaalada Asaba ee xarunta wadanka Itoobiya waxa ay sheegayaan in dowladda Itoobiya ay kulansiisay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Soomaaliland labada madaxweyne iyo xubno kale ku weheliya labada dhinac ayaa ku sugnaa kulankaasi waxaana lagu sheegay in kulanka uu ahaa is aragti sida ay xaqiijiyeen xubno kamid ah safaaradda Soomaaliya ee Itoobiya
waa markii ugu horreysay ay wada kulmaan farmaajo iyo muuse biixi tan iyo markii xilka loo doortay labada dhinacba inkastoo ay xusid mudan tahay in madaxdii hore ee soomaaliya iyo somalilan ay dhowr jeer kulamo kala duwan yeesheen kulamadaas oo gunta ku hayay arrimaha la xiriira somalilan goonisutaageeda iyo sidoo kale qancinta dowladda soomaaliya in ay ka mid noqoto somalilan soomaaliya inteeda kale inkastoo kulamadaas badankood is-afgarad uu ku dhammaaday hase ahaatee lagama gungaarin ujeedkii ahaa in somalilan lagu qanciyo in ay qayb ka noqoto soomaaliya inteeda kale balse dowladda uu hogaamiyo maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa iyadoo ku jirta gebagabada muddaxileedkeeda magacaabday xubno ka shaqeynaya arrimaha wadahadalka soomaaliya iyo somalilan waxaana guddigaas loogu magacdaray dhab u heshiisiinta waxaa arrinkaas soo dhoweeyey qaar ka mid ah mas-uuliyiinta maamulka somalilan waxaana ay sheegeen in muhiim ay tahay in la wada hadlo hase ahaatee wadahadalka waxa ay ku xireen in dowladda dhexe ee soomaaliya ay fuliso ballanqaadyo iyo heshiisyo ay horey u galeen madaxdii hore ee dalka soomaaliya guud ahaan barnaamijkii xogmaal intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa cabdiqaadir qoslaaye ayaa soo saaray maxamed abuukar farsamada ayuu ku jiray qaybta hore ee barnaamijkana waa uu igala qayb qaatay tan iyo kulan dambe nabad iyo warsan Somalay halaag dhacay